بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عشر كده ما أنتم كسبسين هاي سيروجا حنبوجا عشر كيسة قيبتي سلحات. المقعد واحد محمد عشر كنا واحد يسوق بناية UKPHD Union. عشر كلحاد أما قيبت اللحاد حنبوجا waxay ka hadli doontaa driving and parking in London. Transport for London ayaa soo saartay handboogan marka London buu ku saabsan yahay marka wuxuu ka hadli doonaa marka sectionkan driving and parking wada marista iyo parking for London gudaheeda. section kan wuxuu ku siinayaa general information ayuu ku siinayaa micnaheedu ma aha in uu sharciga highwayga ama highway code wax loo yaqaan inuu bedelayo ama uu bedelu yahay means still highway code ku uu ka sareeyaa wixii halkan lagu sheego ugu way ku leeyihiin laguma ogola inaad bas leeyka ku socoto laguma ogola inaad ku parking garayso ku sugto ama aad qof dhigto ama aad ka qaado action ashar kasto oo aan soo marno way ku jirtaa intaas maxay ahayd BHV gu ma aha taxi saas awgeed meelaha calaamadda ku qoran tahay taxiga sida labadan calaamadooda kale adiga laguma ogola misalka waxa loo ogol yahay kaliya taxiga baaskiilka iyo baska PHV kuma jiro halkana waa taxi waa taxigaas kale inta soo general information oo laga siinayay section kan marka section kan waxa laga hadli doonaa qaybahan soo socda stopping and waiting meelaha aad istaagi karto iyo meelaha aad ku sigi karayso wuxuu ka hadli doonaa bus lane-ka iyo bus stop-ka oo wadada basku maro iyo meesha uu basku istaago wuxuu ka hadli doonaa taxi ranking uu ka hadli doonaa wuxuu ka hadli doonaa electric taxi charging points meelaha taxiga lagu charge gareeyo wuxuu ka hadli doonaa BCN-ta ama penalty charge notes waxaan u malaynayaa qof idinkeedii ka mid doon oo aanay ku dhicin ma jirto congestion charge-ka waxa laga sheegi doonaa ULEZ-ka ama ultra low emission zone oo ULEZ-ka waa taqaanaan isagana waxbaa laga sheegi doonaa waxaa kaloo wax laga sheegi doonaa red route-ka sideedda qodob ayuu ka hadli doonaa sectionka lixaad driving and parking in London dan ku bilowno meelaha aad istaagi karto iyo meelaha aad ku sugi karto waxa lagu leeyahay PHV drivers waa loo ogol yahay inay istaagaan qof ka qaadaan ama qof ku drop gareeyaan meelo badan oo maxay ahayd la mamnuucay in lagu sugo ama la istaago inay waxa weeyaan meelo badan oo la mamnuucay in lagu sugo dad wax lagu sugo maba la istaago ayaa loo ogol yahay PHV drivers-ka inay istaagaan qof ka qaadaan ama qof dhigaan ayaa loo ogol yahay meelahaas maxaa ka mid ah intiinaan gaarin waxay kuu sheegayaan waxay ku leeyihiin PHV drivers-ka waa innaga waa darawalada looma ogola inay istaagaan meelaha aad sababayso inaad cid khatar geliso amaba wadada aad xidho meesha aad istaagaysaa waa inaanay
xidhaynin traffic hadii tariiqo soo qaad traffic aad joojinayso lagu dhaafi karaynin laguma ogola inaad istaagto ama aad ku sugto haddii ay khatar keenaysana laguma ogola inaad istaagto ama aad ku sugto waxa kale oo lagu ogolayn meelaha zigzag ah oo loo yaqaano pedestrian crossing iyo meelaha iskuulada madaragtay agtooda ah na laguma ogola oo madaragtay zigzag ah meelaha laguma ogola inaad iyaga istaagto labadan qodob waxay ku sheegayaan meelaha aan istaagi karin marka wuxuu weeyaa waa meel kasta oo khatar dhalinaysa dad istaagto ama ba traffic xirayso iyo meelaha zigzag ah wala meelo zigzag ah jirta pedestrian crossing meesha loo yaqaano oo zebraha zigzag ba ku yaala laguma ogola meesha istaagto iyo meelaha iskuulada madaragtay ku yaala oo maxay ahayd in kaas waa zigzag I think in orange yellow ama yellow yahay labada meelood laguma ogola absolutely inaad istaagto haddii aad qof ku dalagoraynayso iyo aad ka qaadayso iyo haddii kale lama ogola meelaha in la istaago hadduu qofku meeshaas taagan yahay ama internet soo gaarin istaag oo qofka u yeedh amaba dhaaf markaad dhaafto istaag oo qofka u yeedh hadduu ku yiraahdo qofku meelahan oo kale istaag ama meel khatar istaag wuxuu weeyaan qofka u sheeg waxaad tiraahdaa waxaan ku istaagayaa markaan zigzag ka dhaafo ama marka aan helo meel aan madaragtay traffic kaga bixi kareen way aqbalayaan inta badan dadkuna way fahmayaan laakiin haddaad iska socoto oo aanad qofka u sheegin qofku waxa laga yaabaa inuuna garanaynin sababta aad meeshan aanad u istaagaynin bacdana u maleeyo inaad iska dhegatirayso waxa wanaagsan qofka madaragtay hadduu ku yiraahdo meel zigzag ah iyo istaag waxa la yiraahdaa zigzag markaan dhaafan ku istaagayo inaad u sharaxdaa muhiim waxay ku leeyihiin xasuuso waxaad ka qaadi kartaa red line-ka hadduu single yahay iyo hadduu double yahay yellow line-kana waad ka qaadi kartaa doesn't matter inuu yahay double iyo inuu single yahay marka single and double red waad ka qaadi kartaa single and double yellow waad ka qaadi kartaa waana istaagi kartaa waana dhigi kartaa waxa kale oo ka qaadi kartaa ama dhigi kartaa meelaha aan loo ogolayn in loading lagu sameeyo oo calaamaduhu maaragtay ay ku yaalaan waxa kale oo aad ka qaadi kartaa ama ku dejin kartaa meelaha parking bayga waa meelaha la calaamadeeyo baabuurta hadday permit tahay iyo hadday maxay ahayd bayasi go hadday tahay meelahaas oo dhan waad ku bari waad dhigi kartaa qof waad ka qaadi kartaa bus lane-ka waad dhigi kartaa waad ka qaadi kartaa laakiin isku day baa lagu leeyahay inaanad muxuu ahaye basaska iyo traffic aanad joojinin amaba aanad obstacle aanad ku noqonin oo maaragtay hor istaagan waxaa lagu sheegayaa ama lagu xasuusinayaa meelaha aanad ku sugi karayn sugitaanka laga hadlayo waad istaagi kartaa meelaha hadda aan soo marnay waxaana istaagi karaysaa oo keliya inta qofka aad ka qaadayso amaba aad dhigayso waa in ku filan intuu qofku soo gelayo ama ka baxay gaariga waxa ku jirta haddii qofkaasi uu maaragtay wato wheelchair inta aad wheelchairka aad si fiican aad ugu xidhayso oo safe ah ayada lafteeda waa lagu ogolyahay inaad istaagso maaha inaad marka hore ku tuurto qofka kabacdina aad dhaqaaqdo raadsato meelo maaragtay aad istaagi karto marka aad ku xidhan may adigoo meeshaad joogaa qofka secure ka dhigaysaa marka aad u dhamaystirto xadkii lagu xidhay iyo wixii uu baahnaayo dhankaad u dhamaystirto markaasaad dhaqaaqaysa ma istaagi kartid bay ku leeyihiin taxi rank even xataa haddaad ku drop garanayso iyo haddaad ka qaadayso maan tirinin waxaan u malaynayaa waa markii 20aad baan u malaynayaa soo martay waxa buugga ku yaalo weeyaan taxiga sababtoo ah si aad taxiga familiar ula noqotaan taxiga ku yaala ma bedelno
kii baan sidiisa u soo qaadanaa haddii ay meeshaas ku taalo wax mamnuucaya inaad ku sugto ama aad ku parking garayso ma istaagi kartid in ka badan inta uu qofku soo gelayo gaariga ama uu ka degayo meesha day calaamad leedahay mamnuucaya inaad ku parking garayso ama aad ku sugto waxa lagu ogol yahay oo kaliya inaad taagnaato inta uu qof in ku filan inta qofku uu soo geli karayo ma ka bixi karayo wali waxay ku sii xasuusinayaan meelaha aan lagu sugi karin lagu leeyahay ma jiro wax general oo permission ku siinaya inaad gaarigaaga ka tagto si aad u caawiso qof maaragtay passenger aad u caawiso oo matalan ma soo qaadisay disable oo aad gurigiisa u geyso sharci oo ku ogolaanaya inaad gaarigaaga ka tagto waad ku caawisaa ma jirto bay ku leeyihiin laakiin consulska qaar ka mid ah way fahmi karayaan muhiimka shaqada aad qabanaysaa ay leedahay taas micnaheedu waxa weeyaan haddii passengerku uu maaragtay caawimaad u baahdo oo aad caawiso gaarigaaga wax yar wax badan ha ka maqnaan bay ku leeyihiin haddii ay suurtagal tahayna waxaad samaysataa muxuu ahaayey note ka samee qofka aad sido detailkiisa iyo bookingkiisa in case oo lagu soo diro penalty charge notice waxay ku leeyihiin taas sorry waxbaa isku qaldameen meeshii aan marayay waa lunta okay halkaasaan maraynay note ka samaysaa lagu yidhi laakiin waxay u taallaba lagu leeyahay muxuu ahaye consulka u taallaa inay aqbalaan muxuu ahaye codsigaaga iyo in kale oo ay kaa cancel gareeyaan muxuu ahaye in penaltyga iyaga u taallaa hadday doonaan way aqbali karaan hadday doonaan way diidi karaan sababtoo ah ma jiro sharci oo maaragtay ku ogolaanaya inaad sidaas samayso waxay kuu sheegayaan intan haddii aanad qof qaadaynin amaba aanad qof dhigaynin oo aad meelahan oo kale istaagto meelahan ka soo hadlayna istaagto muxuu ahaye in restrictionka lahayd waxaa lagu soo dirayaa bay ku leeyihiin penalty charge notice baa lagu soo dirayaa bay ku leeyihiin waxaa xataa dhici kartaa in lagu soo diro penalty charge notes ama BCN lagu soo diro haddii aad ka soo horeyso waqtigii bookingkii oo aad ku sugto ama uu passenger soo raago oo aad halkaa muddo badan aad taagnaato iyada lafteeda waxaa laga yaabay ku leeyihiin in muxuu ahaye in ganax lagu siiyo waxaa kaloo dhici karta in ganax lagu siiyo haddii passengerku uu ku weydiisto inaad u istaagto meelahaasoo kale si uu ama u galo dukaan ama u isticmaalo cash points si uu lacag ugala soo baxo markaasna waa lagu siin karaa ganax laguma oga
marka iska ilaaliya gaariga injinkiisa waxa lagu leeyahay waa inaad bakhtiisaa marka aad sugayso passenger haddii injinku uu socdo amaba gaariga uu istaaran yahay pollution baad samaynaysaa waxaanad ku jirtaa illegal iyada lafteeda ganax baa lagu sii karaya weligaa qof ha ku drop garaynin waddada dhexdeeda even xataa haddii aad taagan tahay traffic mar walba waa inaad u dhowaataa keebkaad u dhowaataa si uu qofku kaaga dego intaa waxaan ku soo dhammaatay stopping and waiting iminka waxaynu gelaynaa bus lane-ka iyo bus stop-ka waxaad ka qaadi kartaa waad ka qaadi kartaa waanad ku darabarayn kartaa bus lane-ka inkastoo aan lagu ogolayn inaad ku socoto laakiin ka fogow baa lagu leeyahay haddii aad ka fogaan karayso inaad bus stop ku darabarayso waxaa lagu leeyahay waa inaad markaad bus lane-ka marka aad ku darabgaraynayso qof ama aad ka qaadayso waxaa lagu leeyahay waa inaad si toos ah aad u gashaa oo safe ah si toos ah oo safe aad u galaysaa si toos ah oo safe aad uga soo baxaysa mise waxa weeyaan ku soconi wax badan ku leeyihiin marka aad saa samaynayso bus lane-ka maxay ahayd aad rabto inaad qof ku darabarayso ama aad ka qaato iska ilaali bay ku leeyihiin cyclistiga iyo kuwa motoriska wata sababtoo meeshaasay maraan inta badan marka waxa weeyaan waana difficult in si fiican loo arko marka inaad iska ilaali waxay ku leeyihiin pay attention to ama attention dheeraad ah sii iyo dadka ka degaya basaska amaba fuulaya basaska waa inaad iska ilaalisaa markaad bus lane-ka aad rabto inaad qof ka qaado ama aad ku darabarayso laguma ogolaynayso inaad istaagto bus stop clearways-ka oo lagu calaamadeeyey muxuu ahaaye meesha maxay ahayd meesha dadku maraan keebka ku calaamadeeyeen red route-ka ma istaagi kartid bus stop oo lagu calaamadeeyey bus stop lagu calaamadeeyey red line ama maxay ahayd lane as oo ballaaran lagu calaamadeeyey ma istaagi kartid basaska bastobyada waad dhigi kartaa waad ka qaadi kartaa meelaha qaarkood laakiin meelaha red line-ka lagu calaamadeeyey oo ballaaran kaasoo kale ma istaagi kartid laakiin waxa wanaagsanba bus stop oo dhammayn iskaga fogaato sababtoo ah bus stop uu meel dheer maaha waad dhaafi kartaa ama hortiisa istaagi waxay ku leeyihiin bastobyada ku yaala muxuu ahaye meelaha red route-ka inaad istaagto ka fogooba ku leeyahay si aanad maaragtay aanad u xanibin maxay basaska amaba aanad maaragtay u raajinin waxay ku leeyihiin xasuusto taxiga unbaa isticmaali karaa bus lane-ka
qolada PHP-ga looma ogola inay bus link isticmaalaan qof walba uu garanaya taas waxay ku leeyihiin ka fogow buu ku leeyahay inaad qof ku dejiso ama aad ka qaado muxuu ahaayay in bus stop inaad cid ka qaado ama aad ku dejiso ka fogow sababtoo ah basaska ayay dib u dhigaysaa mararka qaarkoodna meelaha qaarkoodna lamaba ogolaba in bus stopkaas la istaago sidii kii aan kasoo hadlayn oo lahaa casaanka ballaaran lahayd halkaas waxaan kaga baxnay bus lanekan kaga baxnay iyo bus stopska waxaan ka hadlaynaa taxi rank baan ka hadlaynaa waad garanaysaa waxa loo ogol yahay taksiyada keliya looma ogola maxaa PHP-ga boqol jeer baan soo aragnay ma istaagi kartid ma ku dorob garayn kartid ma so forth maxaa hayay bus taxi rank haddaad ku baarin garayso ama aad ku sugto taxi rank waxay ku leeyihiin TFL waxay kaa qaadaysaa license action million times soo aragnay waxay nagu cusubaan waxay noqon kartaa in license laga suspend lagaaga sameeyo ama laga revoke garay I don't know why I had so harsh maxaa hayay in taxi rank la yar istaago ama qof lagu drop garay taxi ranking halkaas ku dhamaaday electric taxi charging meelaha taxiga lagu charge garay anaga wax naga quseeban garan lahayba oo ay noogu wareeriyeen ba electric taxi charge kulli waxay leeyihiin inuu meeshaas ma istaagi kartid waxay ku leeyihiin waxa loo ogol yahay kaliya taxiga waska logic adiga laguma ogola qoladan looma ogola inaga PHP-ga moogta mana ku baarin garan kartid mana ku sugi kartid mana kala charge garaysan kartid and so forth mana isticmaali kartid waan soo aragnay iyada waxay nagu cusub maaha haddaad samaysay ku leeyihin halkan license action baa lagaa qaadaya casharkan keliya 10 jeer baan soo aragnay waxay noqon kartaa suspending and revoking your license PCN ama penalty charge notice I don't think qof loo sheegayo qof aan dhowr boqol xabehe ana guriga oo lina mana soo gaarin ma jirto wad garanaysaan parking attendance box siin kara muxuu hayay in enforcement officer ayaa ku siin kara muxuu hayay qofka gaariga iskale waa loo diri karaa waa marka maxay hayday waa marka maxay hayday kaamarada ay ku qabato marka dhowr nooc bay kugu soo ayaa lagu bixin karaa تبيسي ما لوكسين كده بقى لقول لي ابن حتى أنا أركض information محيط enforcement officer بنقول كاميرا بيس يعني أنت بريجورة كاميرون بتشيلين بيا أي هانشر سو محيط السكيل على نشيل ما أعرف enforcement officer على السكيل على نشيل لكن إيه كاميرا ده ماشي كتالو ويقول لي يعني مركان جارجة إن سكرين كله موجود تشينه أما بعد كده شو إن يدو كل جن سكرين كجارجة يعني هو هاي مد مهمة معه
PCM waxa lagu soo diri karaa ama penalty charge waxa lagu soo diri karaa for parking ama moving traffic awayaan moving traffic oo garanaysaa waa marka meelaha bus lane-ka dad marto kale ama meela loogu talagalay inaanad leexanin aad leexato kale ama ba muxuu ahaye waxyaalahaas oo kale ama U-turn samayso kale oo laga yaabo mararka qaarkood xataa inaad madaragtay traffic aad boogayso saas awgeed loo hayday in meelaha madaragtay yellow box aan naqaano in meelaha istaagto kuwaas waa moving traffic weeyaa kuwa parking oo meelaha inta dhigto tagtana iyagana waa parking offense weeyaan kan waxa weeyaan waa moving traffic offense labadaas kale kan waa mar gaariga uu taagan yahay weeyaan kuwana waa kuwa soconaya ama ka qalaadka sameeyso bus lane iyo so forth and so forth halka waxa ku dhamaaday maanta waxaan jeedaa ka ku dhamaaday penalty PCM and penalty charge notes aan galaynaa congestion charge BHVs ka gawaarideena haddii ay galaan congestion charge ka waxa looga baahan yahay inay bixiyaan the daily charge yeah unless or I accept yihiin information waxa ka helaysaa time-ka iyo date-ka and so forth waxa ka helaysaa website-kooda ka helaysaa I think qof loo sheegaya ma jiro qof kastoo inaga mid ugu yaqaana haddii gaarigaagu uu yahay gaari wheelchair accessible means congestion charge-ka waa laga dhaafaya ama congestion charge-ka gariiba ku noqonaysa waxaad ka heli karaysaa TFL website-keegaad ka heli karaysaa inuu gaarigaagu yaa qorada loo ogol yahay iyo inuusan ahayn ultra low emission zone waad garanaysaan waa ULEZ-ka si air quality-ga magaalada London loo hagaajiyo waxa loo sameeyay ku leeyihiin aan loo yaqaano ULEZ information waxaad ka heli karaysaa website-kooda ku saabsan ULEZ PHVs ama maxay ahaydee in gawaarida oo aan muxuu ahayn ULEZ waxaa laga baahaya inay daily charge bixiyaan waad garanaysaa petrolka gawaarida petrolka waa inay yihiin Euro 4 iyo wixii ka dambeeyey dieselkana waa inay yihiin Euro 6 iyo wixii ka dambeeyey kan waa iska yara information yar oo u baahantay inaad iska akhrido marka halkaasuu ku dhammaanaya ULEZ-ka waxaan gelinayaa iminka red zone-ka waxa lagu leeyahay red zone-ku waa main roadska ay London iska leedahay waxayna ku calaamadsan yihiin red lines meesha cape-ka ayayna ku yaalaa PHVs-ku san hore soo maqan san hore si hore noogu soo sheegeen way ka qaadi karaa wayna ku drop garan karayaan single and a double red line waan soo aragtay laakiin ma ku sugi karayaan passenger meelaha maaragtay restriction-ka iskale حتى هدي اعتماده وحير كهر بوكينكاغا مو
passenger uu soo raago waxa weeyaan amaba aad dukaan gasho waxa weeyaan laguma ogola waxaa jira exemption baa jira aad istaagi karto muxuu ahaayey in red route waxa weeyaan waa habeenkii 10 habeenimo ilaa 6 in the morning inta u dhaxaysa meelaha cash pointiga ah waad istaagi kartaa waxaana taagnaan kartaa 5 minutes waxay ugu talagaleen dadka ka imaanaya meelaha maaragtay xafladaha iyo maxay ahayd ka imaanaya in la yara sugay ugu talagaleen waxaa lagu leeyahay meelahan hadda soo socda lama istaagi karaayo for wax haba yaraatee reason ah oo loo istaagi karaa ma jirto waa maxay ahayd in zigzag oo pedestrian clear wayga bus stopka muxuu ahaayey oo bus stopka nooca maaragtay bus stopka nooca muxuu ahaayey in line-ka casaanka ah oo ballaaran haysta qofkii doonaya wuxuu ku arki karaa Liverpool Street Station hortiisa ku yaala iyo muxuu ahaayey iyo meelaha maaragtay uu gaariga traffic maaragtay uu xidhayo laguma ogola inay istaagto wax haba yaraatee reason ma laguma ogolaba bataat ma laguma ogola iyo meelaha aad khatar gelin karto wixii kale oo maxay ahayd in roorka isticmaalaya waa inta aan lagu ogolan inay istaagto waynan soo marnay mar hore meelo ka mid ah red route-ka waxaa loo calaamadiyey as parking waxaana lagu calaamadiyaa xarafka B meeshaas boardka meesha ku yaala ku sheegi doona in lagu ogol yahay meeshaas inaad ku baaran garayso iyo how long aad ku baaran garayn karayso iyo marka qaarkood inta lagu ogol inaad kusoo noqoto waxay ku oranayaan saacad baad free lagu ogol inaad ku baaran garayso waxaa ku oran karaya saacad baa lagu ogol yahay inaad free ugu baaran garayso hase haatee 2 saacadood ma soo noqon karto noocaas oo kale boardka ku qoran aad bay muhiim u tahay inaad attention siiso muxuu ahaayey calaamadahaas ku yaala iyo limitationka ama maaragtay restrictionka ay bixinayaan gabadhida PHP-ga way ka qaadi karaa kuna dordarayn karayaan qof wayna ku baaran garayn karayaan inay sugi karayaan in parking meelo maxay ahayd parking ah haddii ay dee sharcigaas ay raacaan limitationkaas marka halkanna waxa weeyaan waa calaamadaad ku arki karayso iyo sida ay u eg yihiin sawir ahaan red route wakan waa parking bay oo red ah wakanna waa parking bay oo caddaan ah single red double red mid calaamad leh midaan calaamad lahayn mid calaamad lahayn iyo mid calaamad leh mid calaamad kale leh oo maxay ahayd lagu ogol yahay waqtiga halkaa ku qoran kanna waxa weeyaan waxa loo ogol yahay oo keliya in muxuu ahaayey in wax lagu dejiyo waa loading baa loo ogol yahay kanna waa parking kanna waxa weeye lama istaagi karo meelaha aan la istaagi karno restriction kalena calaawan ka soo hadlay waad ka qaadi kartaa waad dhigi kartaa laakiin kuma sugi karaysa casharkeennii maanta halkaas ayuu ku dhan yahay casharkeennii maanta halkaas ayuu ku dhan yahay
عندي سؤال قبطة وين سوي الدين كريان وإحنا إذا لا هاي وإنه إيو next time عشان كحيجان نقول يعني مو هاي section 7 بنقول إن شاء الله next week وإن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.